dowladda Eritrea oo ka mid ah saaxiibada waayihii dhammaa ugu dhowaa Soomaaliya ayaa qaaday tilaabo militari oo culus oo mar kale horseed u noqotay inay ciidamada Itoobiya isaga baxaan xadka deegaanada ka dhow gobolada Awdal iyo Saylac oo maalmihii dambe ay culays saareen. Eritrea ayaa qaaday ciidankii ugu badnaa si degdegana ku gaaraya magaalo xebeedka Lughayo oo halka bartilmaameed ku ah ciidanka Itoobiya. Sidoo kale Baki ayaa qayb ka ah gobolka Saylac iyo deegaanada xuduudaha Djibouti iyo Soomaaliya ay wadaagaan. ciidamadan ayaa in ka badan 25,000 ah waana qorshe ay Soomaaliya mar kale ku weeqaysa awoodaha iyo mar kale gulufka military ee waday Abiy Ahmed iyo Bixi, kuwaas oo ay ku doonayaan inay si xadgudub madax bannaanida dhuleed iyo Soomaaliya iyo gobonnimadeeda ay ku dhaawacaan Itoobiyaankan ay u qaataan mid ka mid ah xeebaha Soomaaliya ugu dheer uguna muhiimsan. dowladda Eritrea kadib xiriir uu la sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la xaqiijiyay inuu ka dalbaday ciidamadii ugu badnaa ee Soomaaliya tababar halka uga idlaaday. sidoo kale madaxweynaha Eritrea ayaa waxa uu dalbaday ciidankii horey dalkaasi looga soo qaaday oo qayb ka noqon doona howlgalka military ee difaaca deegaanada gobolada waqooyi ee xabashida looga horjoogo. Itoobiya ma farxad gelinaysa tilaabada ay wadaan Masar iyo sidoo kale Eritrea, waana laba dowladood oo cadow weyn u aragto xogaheeda oo dhammaystiran hayo. taasina waa caqabad mar kale guuldarro u horseeda Abiy Ahmed. ciidankii ugu badnaa ee labadan dowladood isugu jiray Soomaaliya iyo Eritrea ayaa saacadaha soo aadan si degdeg ku gaaraya magaalada Lughayo ee gobolka Awdal. tanina waa qorshe guud oo qaranku u dejiya guud ahaanba ilaalinta xad iyo xuduud ee Soomaaliya ay leedahay iyo aragtiyada fikirka qaldan ee Itoobiyaanka inaysan hirgelin. dowladda Soomaaliya hore waxay kaga dhawaajisay inay af iyo adinba ku difaacanaysa xadka iyo xuduudaheeda isla markaana ay si ruboobi doonaan isku dayga Abiy Ahmed iyo qorshaha qaldan ee xabashida xilligan ay xusulduubka ugu jiraan inay deegaanadaasi gaaraan. wararkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in madaxweyne Asiisa ay mar kale go'aan weyn u qaatay dejiyana istiraatiijiyadda ciidan ee mar kale ee Eritrea qayb kaga noqonaysa difaaca Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horaantiiba markuu soo shaabaxay heshiis beenaadkan labada dal uu gaaray waa Eritrea iyo sidoo kale dalka Masar. taas ayaana muujinaysa halka ay mar kale istiraatiijiyadda Soomaaliya ka hana qaaday. tilaabooyinkaasna waxay u ahayd Itoobiya geeri maadaama dalalkan ay markaan xiisad culus kala dhaxaysa ahna dalalka kulaala badda cas oo Itoobiya ay si weyn xilligan ugu xifaaltamayaan. si kastaba ha ahaatee Abiy Ahmed oo mar kale indhaha caalamka ay fiirinayaan dagaalo culus ay gudaheeda ka socdaan ayaa la kulmay niyad-jab aad u culus. awoodahan dheeraadka ee military ee Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ee u dalbata ayaa kuwa beer ka gooya Itoobiya kana nixiyo xukuumadda Abiy Ahmed oo aysan jirin qorshe military iyo mid siyaasadeed oo xilligan ay kala hortegi karaan. intaasi waxaa dheer in maraakiibtii dagaalka ee Turkiga ay ku soo wajahayeen xeebaha Soomaaliya, diyaaradaha miiga nooca dagaalka iyo qumaatiga iyo kuwa basaaska ahna maalmihii lasoo dhaafay ee Turkiga ay leedahay dul wareegayeen goboladaas oo xog dhammaystiran iyo sawirro laga helay ciidanka Itoobiya ee xadka ku sugnaa. dhabarjab weyn ayuu ku noqotay Abiy Ahmed, waana qorshe uusan malaysanayn in tilaabooyin diblomaasiyadeed iyo kuwa dagaal oo Soomaaliya deegaankeeda ay ku difaacanaysa sida loo qaado. taasina waxay horseed u noqotay inay soo gaabiso mustaqbalkii xabashida ee deegaanadaas ugu xaqaltaagayeen. gudaha Itoobiya waxaa ka taagan mar kale dagaalo gudahooda ah oo Oromiya ayaa la doonaya xukunka in la dhaafiyo iyo kaligistaaliska Abiy Ahmed, waxayna Tigreega iyo sidoo kale Amxaarada ay wacad ku mareen inay Addis Ababa gali doonaan, guud ahaanna dhulka degi doonaan goob kasta oo fadhi dhinacyadan u ah. dhankeeda Oromada dagaal ayay kala soo horjeedaan xukuumadda Abiy Ahmed, waana cabsi iyo walaaca laga qaba mar kale xaaladda gudaha Itoobiya ka jirta oo xiisadda gobolka uu ka kiciyay Abiy Ahmed uu kaga jeedinayo indhaha caalamka. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaadatay go'aano waaweyn oo badqabka dalka lagu ilaalinayo iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya mustaqbalka jeelka dambe. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu ka dhabeeyay go'aanadiisii ahaa inay Soomaaliya xilligan iyo saaxiibadeeda kaashanaysa awood ku filan u leeyihiin inay ka jawaabaan isku day kasta oo xabashada ay doonayaan. dowladda Eritrea waxa ay soo rartay hubkii ugu badnaa oo gaadiidka wax xambaare ay ku jiraan kaarayaasha iyo hubka culus ee madaafiic goobeedka ah. tanina waa caqabad weyn oo mar kale dhabarka ka jabinaysa xabashida. Soomaaliya waxay qaadi kartaa tilaabooyin waaweyn ama Eritrea, waana mid mar kale goynaysa guud ahaanba xilligan in looga faa'iideysta awoodaha ee Itoobiyaankana la dhaawaco. taas ayaa ah in la jari karo wadada marinka ee Djibouti ka baxda gasho gudaha Itoobiya, maadaama ciidamada Eritrea iyo sidoo kale Soomaaliya ay xadkaasi gaari doonaan taana goobaha ay soo marayaan. tani waa haddii uu dagaalka adkaado, maadaama Djibouti xilligan ay saaxiib la tahay Itoobiya walow dhankeeda ay gacan isaga ilaalinayso. haddana qorshaha Soomaaliya iyo dhinacyada saaxiibada la ah ayaa doonaya inay qaadaan tilaabooyin waaweyn oo mustaqbalka Itoobiya saameynayo. ciidamadan iyo sanada hubeed ee dheeraadka mar kale gobolada Awdal iyo Saylac sida ugu dhaqsiyaha badan u gaaray ayaa ah mid aan mar kale niyad-jab culus u horseeda dhanka Itoobiya.
maalmihii lasoo dhaafay culays xoogan ayay Itoobiyaanka saareen deegaanadaas iyagoo shacabka ugu baaqaya inay si isdejiyaan jirinna dagaal xilligan Itoobiya kala hor imaan karaan. Hogaamiye Biixi waxa uu fashilmay tilaabo kasta oo qaado, Soomaaliyana waxay saartay cunaqabatayn degdega taas oo soo gaabisay rajadii iyo mustaqbal beeneedkii iyo heshiiskii uu la galay Itoobiya. Markaana beelaha Samaroon iyo Ciise ayaa mar kale ku dhawaaqay go'aan dhabarka ka jabiya soona gaabinaya mustaqbalkii jiritaan ee maamulka Somaliland, taas oo horseed u noqotay inay beelahan wacad ku maraan inaysan Itoobiyaanka cag dhigi karin deegaan iyo xaduud ay leeyihiin. Waxay ku dhawaaqeen beelahan godajir u qabteen kulamo xasaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka socda deegaana xeebeedyada. Waxay ku dhawaaqeen dagaal militari oo culus oo ay la kaashanayaan cid kasta oo ka gacan sii karto. Soomaaliya hore waxay xiriir ula samaysay hoggaanka deegaankaas iyo dadka kala duwan iyo qaybo ka mid ah dhinacyada xilalka ka soo qabtay Somaliland. Taasina waxay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo meesha looga ciribtirayo maamulka la magac baxay Somaliland. Awdal State ayaa lagu dhawaaqi doonaa maalmo iyo saacadaha soo wajahan. Taasina waa mar kale qorshe lagu guud ahaanba meesha looga saarayo heshiis beneedka Abiy iyo Muuse Biixi maadaama taliskooda mid ka diman la geenayo. Si kastaba ha ahaatee go'aanka beelahan ay gaareen ayaa inaysan beesha isaaq iibi karin bad iyo dhul iyo beri ay leedahay, Itoobiyana xilligan u gacan geli karin. Taas ayaana caqabada u mari la'ya Muuse Biixi maadaama maamulku u yahay mid beela wax ku darsadeen, horena ay u tageen beelaha Samar waa beeshas dhulmahate iyo dhinacyo kale oo warsagari uu qayb u ka yahay. Taas ayaana horseed u noqotay walaaca ay qabaan xukuumadda Biixi. Si kastaba ha ahaatee tillaabooyinka diblomaasiyadeed iyo kuwa dagaal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qaaday ayaa horseed u noqday cabsi iyo walaac soo culus ee soo wajaha dhanka Itoobiya. Dhowaan madaxda Masar iyo Eritrea waxay gaareen go'aano waaweyn kuwaas oo quseeya arrimaha badda iyo dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya halkii ugu xumaa gaaray, waxayna wadajir ugu dhawaaqeen madaxda dalalkaas inay diri doonaan awoodo ciidan oo si degdeg ah kaga jawaaba daandaansiga Itoobiya oo mustaqbalka dalalka badda casdhaca ama iskale milkiyadeeda saameyn doonto. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhankiisa waxa uu ku sugan yahay Turkiga, waxaana lagu wareejiyay saanad militari marka laga soo tago hubka culus iyo difaaca badda Soomaaliya oo Turkiga dhexda u xiratay. Haddaba saaxiibayaal, wararka soo aadan ayaanu ku soo gudbin doonaa wixii ku soo kordho halkan ayaad nala joogi kartaa. Mahadsanidin.